munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo ahayd xuska 3 sano guurada isbitaalka military ee ciidanka dalka Cumar Xasan al-Bashiir ayaa saaka qabsoontay. munaasabadaas ayaa waxaa gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo marwada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwa Khadra Maxamuud Xayd. markii ay soo gaareen xarunta isbitaalkaasi ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Abduqaadir Kaamil Maxamed iyo wasiirka gaashaandhigga qaabilsan xiriirka baarlamaanka mudane Cali Xasan Bahdoon iyo taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida General Zakariya Sheekh Ibrahim. intaasi kadibna mas'uuliyiinta ayaa waxa ay salaan sharaf ka qaateen cutubiyada kala duwan ee ciidanka oo halkaas ku soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda. waxaa isbitaalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir ee ciidanka qalabka sida dalka uu qaadi karaa ilaa 130 sariirood oo ku qalabeysan yahay waxaana qalabkaasi uu yahay mid si heersare oo adeegyo kala duwan aad ka heli doontaan sida adeega urgenska degdega qaybta dhalmada iyo waliba block operatorka jeexista iyo waliba qaybo kale oo ku aadan baaritaanada oo isbitaalkaasi uu ku qalabeysan yahay. isbitaalkaasi ayaa waxaa sidoo kale laga hirgeliyay qalab cusub oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu xariga ka jaray oo lagu qalabeeyay isbitaalkaasi. munaasabadaas ayaa sidoo kale waxa uu joogay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumed xubnaha xukuumadda xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo isugu jiray rayid iyo military iyo marti sharaf kale oo lagu soo marti qaaday munaasabadaasi. waxaana isbitaalka ciidamada qalabka sida ee Cumar Xasan al-Bashiir uu yahay mid ka turjumaya ilaaqaadka iyo saaxiibtinimada u dhaxaysa Suudaan iyo Djibouti maadaama ay yihiin laba dal oo walaal ah. madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo ka hadlay xafladda 3 sano guurada isbitaalka ciidanka qalabka sida ayaa waxa uu sheegay in isbitaalkan wax weyn uu ka qaban doono baahida caafimaad ee jirta. 3 sano oo hawl ah ayaa ciidanadu ku jireen oo serviceka medicalki ku jiray waxa muuqata yani dadaalkaasi inuu keenay in isku filaansho yani xagga wadnaha iyo xagga dhakhtarka guud ahaanba ina lagu dhow yahay bayna tusaysaa dad dadaal ku jirana wayna tusaysaa xoolo badan inay ku baxeen wayna tusaysaa in kartidii iyo farsamadiina ama farshaxankii yani lagu shaqaynayna dadkeygii inna ay joogto inna ay maqan tahay waxay muujinaysaa in laga haqabtiri karayo dalka dhoof badan iyo kharash badan oo wadana kale imika loola ordo in halkan lagu sameyn karayo. guushaana waxa soo hooyay wararkan ee ka shaqeynaya arrinkaasi iyo taliyaha ciidamada Maxamuud Cusmaan Bulxaan TV-ga caalamiga ee badda 24 Djibouti.